si dhib yar baynu u samaynay run ahaantii loogadii ay ku qornayd Islamic Technology. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa nabad daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha allahu tacaala isla muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa haddii eebbaha wooda la yidhaahdo waa muuqaalkii afraad oo aynu kaga hadlanay applicationka loo yaqaano Pixel Lab. Applicationkaas oo application aad iyo aad u faa'iido badan isla markaasna waxyaabo Photoshopka uu qabto oo dhan lagu qabto isla markaasna waa application run ahaantii graphic design-ka aad iyo aad ugu fiican xagga mobile-ka. Insha allahu tacaala waynu ka faa'iideysan doonaa haddii eebbaha wooda la yidhaahdo saddexdii cashire ugu horreeyay aynu soo dhiganay oo ku saabsan kan haddii aynu dib ugu noqono halkan ayaad tegi doontaa insha allahu tacaala markaad kanaalka soo booqato halka ay ku qoran tahay playlist. Halkaa markaad ku dhufato isla markaad halkaa ku dhufato halkan waxa kaaga soo bixi doona casharo aan kooxa u soo gelinay. Halkan waxa kaaga soo bixi doona Pixel Lab-ka aynu soo gelinay sidoo kale waxaynu kasoo hadalnay sida mobile-ka viruska looga saaro isla markaasna mobile-ka haddii uu shaashadiisu kaa istaagto ama culays aad dareemayso ama storage-ku si dhaqso ah uu buuxsamayo halkiisa ayaynu run ahaantiis kasoo aragnay. Sidoo kale barnaamijyada quraanka aynu kasoo hadalnay Pixel Lab-ka sanadkii hore baynu kasoo hadalnay isaga laftiisa laakiin kani maaha advanced si fiican maaha laakiin kan 2021 ayaa aad iyo aad u fiican kaas ayaan kugula talinayaa. Markaa saddex cashir oo halkaas saddex cashir baynu soo qaadanay haddaynu halkaa Pixel Lab 21 aynu taabano saddex cashir baynu soo qaadanay casharkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad maanta casharkii afraad insha allahu tacaala aynu galaynaa. Insha allahu tacaala maanta waxaynu ku dhigan doonaa haddii ilaahay dhahdo logo waana casharkii ugu dambeeyay inuu loogada kaga hadlayna haddii kadib waxyaabo kale ayaynu design garayn doonaa aynu samayn doonaa insha allahu tacaala. Ka hor intaynaan casharka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe aad saartaan oo halkan aad ku dhufataan subscribe aad ku dhufataan kadib markaa subscribe aad ku dhufataan isla markaasna halkan calaamada jeleska ayaad ku dhufan doontaan insha allahu tacaala. Kadib markaa subscribe garayseen asxaabta qaaliga ee nagu xidhan intaa kadib waxaynu tegaynaa barnaamijkeennii waxaynu tegaynaa insha allahu tacaala Pixel Lab-ka halkan ayaynu ku dhufanaynaa application-keennii si aynu usii wadano tutorial-keena aynu u dhammaystirano. Kadib marka uu sidan inoogu soo interface-kiisu inoogu soo kaco application-ka oo aynu application-ka furno waxaan insha allahu tacaala maanta aynu design garayn doonaa hal logo oo wareegsan isla markaasna waxaynu eegi doonaa qaabka shaambad ahaan iyada lafteeda loogu isticmaalo ayaynu insha allahu tacaala eegi doonaa. Marka tagaskan baynu marka ugu horeysa iska delete garayn doonaa tagaskan halka delete-ka ayaynu ku dhufan doonaa kadib shapes-kaynu kusoo darsan doonaa halkan shapes-ka kasoo darsan jirnay waad garanaysaa. Markaynu shapes kusoo darsano halkan kaga soo darsano waxaynu tegi doonaa shapes-ka isla markaasna kan circle-ka baynu qaadan doonaa. Markaynu kan circle-ka aynu qaadano xoogaa baynu yara weyneynaa intaynaan hadda tig aynaan siin weeyaan oo in halka tigta aynaan ku dhufan ayaynu shaqo fiican ka qabanaynaa saas baynu xoogaa u yara weyneynaa. Kadib markaynu shaashada saas oo kale usoo yara leegeysiino halkan baynu kor u yar riixaynaa kadib markaynu kor waxoogaa u riixino halka stroke ay ku qoran tahay baynu saa u yar kordhinaynaa hareeruhu kasoo yar madoobaanayo waynu arkaynaa. Marka stroke-giisa ilaa intaasaan ka dhiganaa ilaa 6 meelaha ama 5 adigu 6daas baynu ku daynaynaa. Kadib markaynu hawshaa qabano kor ayaynu xoogaa baynu dib usoo yara noqon doonaa ilaa aynu soo gaarno bartan ay sare ay capacity ay ku qoran tahay halkan. Intaa kadibna waad arkaysaa imika dhexdii way maran tahay already capacity-ga 0 baynu ka dhigaynaa insha allahu tacaala. Halkii stroke in dib xoogaa ugu yara noqdo stroke ayaan insha allahu tacaala aan haddii ilaahay dhahdo yaraynayaa stroke-gana ilaa meelahaas baynu ka dhigaynaa. Kadib calaamada tigta ayaynu ku dhufanaynaa halkan calaamada tigta ayaynu intaa kadib ku dhufanaynaa. Kadib markaynu ku dhufano waad arkaysaan si fiican baynu arkaysaan qaabka ay noqotay. Intaa kadibna waan koobiyeynayaa si aan u koobiyey waan halka shapes-ka waan imaadaa calaamada center-ka waan ku dhuftaa kadibna waan iyadoo ay halad gareysan tahay tani waa in markaa ay halad gareysan tahay isla markaasna waa inaan haddii ilaahay dhahdo halkan copy aan ku dhuftaa. Mid labaad ayaa inoo soo baxday waxoogaa baan yaraynaynaa markaynu waxoogaa tan aynu yarayno qaabkaas oo kale aynu ka dhigaynaa. Intaa kadib labada ka sare ayaan dooranayaa ka weyn ayaan dooranayaa sare markan ka weyn aan doorto aan select gareeyo halkan shapes-kan ayaan waxoogaa sidan baan u wadayaa shapes-kan xaggaas baan u wadayaa xaggaa falaadha ay u jeedo ayaan u wadayaa xaggaas baan waxoogaa u riixayaa markan xaggaa u riixo ilaa aan gaadho meesha ay ku qoran tahay relative position halka ay ku qoran tahay relative position ayaan ku dhufanayaa. labada center-ka ayaan ku dhufanayaa labada ka ayaga
automatically buu centerka u imanayaa. Markuu centerka uu yimaado xagga sare ayaan tegayaa, halkaas sare ayaan tegayaa sare. Marka halkaa tago aan ku dhufto isla markaas isagu waa ka hoose, kala koobiyeyna waa ka sare. Marka ka hoose baan quful ku xidhanayaa si aanu centerka uga dhaqaaqin. Isla markaasna haddana waxaan dib halkaas baan dib u soo furayaa. haddana ka yar ayaan taabanay imika weyn ma highlight gareys meesha kasta inuu riixo ka yar baan isla mar labaad isla centerka keenaya isla markaasna waa inay halkan ii dooran tahay isla markaasna waa inay shapeskani meesha ii yaalaan koobigani waxaan oo markaan highlight gareeyaan taabto halkaa weeyaan isla markaasna waxaan tegi doonaa meesha ay ku qoran tahay relative position baan mar labaad tegi doonaa iyadna isla bartii uma ku dhufanaya ka iyo kaas ma ku dhufanaya labadaas ma ku dhufanaya labada marka ku dhufto waad arkaya mid si dhaqso centerkiis kaga yimiday wadiga arkaya imika dhinac kasta distance isku mid ah ayay ka xigaan sababtoo ah waxaan isticmaalay relative position isla markaasna labadaba waan xidhanayaa oo loo gareynayaa labadaba sida loo goreeyo hore inuu soo dhiganay inta kadib waxaan soo gelinaynaa tagas bin soo gelinaynaa markaynu tagaska isku dhufano halka tagaska isla markaasna tagaska ayaynu laba goor click siinaynaa isla markaasna tagaska ayayna soo furmaya wasalaam waxaan ku qorayaaba islaamik ayaan qortay kadibna islaamikaasi halkan eeda ayaan ku dhufanaya halka eeda markaan ku dhufto kiyo highlight gareysan waxaan dhan ayaa ii soo baxaya inta kadibna waxaan ku dhufanayaa halka color ay ku qoran tahay colorka ayaan ka bedelayaa tusaale ahaan colorka blue colorkiisaas madowga ayaan ka dhigayaa kadibna tick ayaan odhanayaa kadibna xoogaa baan yara weyneynayaa kadib markaan xoogaa yara weyneeyo isla bartan eedu waa inay highlight gareysan tahay eedaasi isla markaasna waa inay shape-kani meesha ii yaalaan shape-kana sidaan u riixayaa ilaa meesha aan gaaro curve ay ku qoran tahay halkaas curve ay ku qoran tahay kadib halkan ayaa sidan hoos dhankaas waxaan u wadayaa midigta ilaa 60 meelahaas aan gaarsiinaya markaan meelaha gaarsiiyo imka waad arkaysaa kadibna halka islaamika ayaan ku qoray kadibna waan iyada lafteeda dib u koobiyeynayaa markaan koobiyeeyo haddana laba goor baan taabanayaa markaan taabto halka waxaan ku qorayaa technology loogadeedan oo kale ma sameynaya haddii ilaahay dhaahdo technology wataa dhanka kale imika u qalloocdaa isla bartii uma tegaynaa curve dhanka kale imika u qalloocinaynaa marba dhinac baan u qalloocin karnaa sida kuu muuqata weliba xoogaan yareeyo sug xoogaa markaas iskiisa yareeyaad si fiican u arki doontaa aan ku noqdo waad arkay kolba dhinac ayaan u qalloocin karaa kolba dhankaan u jiido ayay noqonaysaa marka dhankaas baan u riixayaa ilaa iyo meelaha 70s baan geeliyaa minus 70 waan kasii yaraynayaa ilaa meelahaas ayaan ka dhigayaa waxaa la moodaa labada far inay kala size badan yihiin kan ayaanu highlight gareynaynaa sizekiisa ayaanu check gareynaynaa halkaas size ay ku qoran tahay tooliska markaan tagno halkaas size ay ku qoran tahay halkaas size ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa kani waxa weeyaan 950 ka kale sare baynu taabanaynaa isagana waan check gareynaynaa size ayaynu ku dhufanaynaa 950 kana waana ka dhignaa 59 waana ka dhignaa size ku leegaadaan inta kadib curve aan ku yara noqonayaa ka kale si fiican baan u fadhiisiyay baan u malaynayaa haddii aan rabo inaan weliba sii badiyo aan xarfaha isku dhow yihiin baa la moodaa halkaas baan tegayaa ay ku qoran tahay spacing halkaas kadibna space-kooga ayaan yar kala fogeynayaa okay mar labaad haddana curve waxay u baahan tahay runaantii inaad in badan ku noqoto oo aad habayso ayay kaagaga baahnaanaysaa mar kasta marka waxa kugula talinayaa kulli toole designka marka muuqaal la duubayo waqti badan bay run ahaantii ku qaadanaysaa marka insha Allah taala waxba ugu sii fogaan mayno adiga ayaa kulli toole aad u sii qurxin doona imika noocay tahay si fiican baad arkaysaa baan malaynayaa okay saas bas kaga deynaynaa isla markaasna waxaanu ku daraynaa labadii waxaanu ku soo daraynaa xidigood ee bartanka halkaa iyo halkaas baynu ku dhufanaa calaamada wadarta labada xidigood ayaynu ku dhufanaynaa halkaa shaybis ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa isla markaasna isha yar baan soo furaynaa isla markaasna halkan aynu xidigtii watan isla markaasna halka tigta ayaynu ku dhufanaynaa isla markaasna waynu yaraynaynaa markaynu xoogaa saa u yarayno ilaahay dhaahdo halkaa bartanka shaybiskaynu ku dhufanaynaa halkaas baynu ku dhufanaynaa shaybis badan baa inoo soo bixi doona markaynu halkaa ku dhufano waadiga arkaya kadib xaggan baynu xoogaa u yar soconaynaa ilaa color meesha ay ku qoran tahay aynu gaadhno halka kale markay ku dhufano kadibna halkan baynu enable ka dhigaynaa halkan ayaynu enable ku dhufanaynaa kadibna casaan baa inoo soo baxay hoos baynu saas aynu yar riixaynaa colorkii halkan inooga soo baxaya
waa kan run ahaantii kalarka madow aan ka dhigay isku eegaysiinaya kadibna waan koobiyeenaya xagan ayaan u soconaya ilaa koobi aan gaadho halka koobi ay ku qoran tahay ku dhufanaya kadibna marka halka ku dhufto waad arkaysaa imika waxa weeyaan loogadeeniyo caadi ayaa soo baxday kadib waan wada xidhanayaa si aan iyaga dhaqaaqin halkaas sare ayaa ku dhufanaya intaa kadibna quful baan ku wada xidhanaya waxaan oo dhan wada casaan si ay u noqdaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 afarta waan ku dhufanayaa labada hoose labada circle bay ahaayeen hore inoo xidhanay kadibna halkaas baynu ku noqonaynaa si aynu iskaga qaadno waxaan markaynu ku dhufano way naga dhaqaaqday imika waxay noo hadhay bishii iyo weliba xaggii dhexda loogada wixii halkan dhexda kaga qornaa sida loogadan halkan kaaga muuqato oo kale kadibna waxaan samaynaynaa haddii ilaahay dhahdo halka calaamadda wadarta ayaynu ku noqonaynaa halkaas baynu ku noqonaynaa waxaan kusoo darsanaynaa marka haddii ilaahay dhahdo shape baynu kusoo darsanaynaa weliba circle ah okay shape-ka marka kusoo darsano kadibna waynu koobiyeenaynaa كوبي بنان كوين أوجو بحي شيء بكن إنه إن شاء الله تعالى يرين أي إن شاء الله تعالى كلر إنه قدرينا كده مركز شيء بكا إنه كلر كصدرنا قاب كلر كي وحنا لو صدر يعداد ربطه مقالد هراء إن شاء الله تعالى سيف عنو صدق وندونتها كده بناك كلا يعني تاسو كلا سكوت دول جايا أنت هم بدو كلام كبيش عا إسوا حدا يعني رواية تاسو رواية ناس كوت شرو كدي له هاي لحظة ساس سكوت دول جاي كده بنا هل كاس بقول فنيا هل كاس ما كده بنا كل فنيا كورنها kadib marka halka ku dhufto labadu waa labadan ugu sareeya labada shape ayaan isku trim gareynayo marka halka yar hoostan ku dhufan doona hadii ilaahay dhaahdo halka marka ku dhufto labada shape ayaan tigareynaya labada box waan arkaysan u tigareey kadibna labada rectangle ee hoosta ayaa ku dhufanaya labadaas hadii ilaahay dhaahdo ayaan ku dhufanaya kadibna labada rectangle marka ku dhufto okay baynu leenahay kadib markaynu okay niraahno hadii ilaahay dhaahdo waxaan samaynaynaa hadii ilaahay dhahdo kan cadaanka kalarkan baynu ka masaxaynaa labada way noo highlight gareysay imika way noo highlight gareysay kadibna halka shaybiskeena joognaa kadib xaqan inoo socon doona ilaa ayaynu gaarno meesha ay ku qoran tahay erase color halkaas markaynu gaarno ayaynu ku dhufanaynaa insha Allah taala erase color halka ku qoran tahay markaynu ku dhufano kadibna halkan baynu able oranaynaa wadiga arkay sida ay u go'day run ahaantii qaabka ay u go'day wad arkaysaa kadibna sawirkii baynu ku soo darsanaynaa hadii ilaahay dhaahdo sawirkii markaynu ku soo darsanano kadib halkan aynu ku dhufanaynaa halkaas calaamadda wadarta kadibna halka ay from gallery ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa kadibna waynu ku soo darnay wadiga arkaya waynaga ku soo darnay fartii waxa waynaga ku soo darnay hadii la yiraahdo picture-kii ama fartii ayna luqadda Carabiga ku soo photoshopaynay oo sawir ahaan gallery-ga aynu ugu kaydinay kadibna color baynu iyada lafteeda ku daraynaa iyada lafteeda aynu kala raynaynaa madow baynu ka dhigaynaa sidan oo kale kadib qaabkaas oo kale aynu u sameynaynaa qaabkaas oo kale baynu u sameynay Islamic technology loogadeedu qaabkaas oo kale bay u sameysan tahay kadib markaynu qaabkaas oo kale aynu u sameynay dhamaantood aynu isku dhajin karnaa sida u dhan yihiin ayaynu isku dhajinaynaa si aynu kalarka uga bedeli karno kadib halkaas aynu ku dhufanaynaa sare kadib markaynu halka ku dhufano kadib waxaan ku dhufanaynaa halka yar ee hoosta isha yar halka yar baan ku dhufanaynaa qoraalkaas markaynu halka ku dhufano kadib boogashada dhan waynu wada tigaraynaa sababtoo ah dhamaantii waa isku wada dhajinaynaa kadib markaynu saas ugu wada dhajino halka labada triangle ayaynu ku dhufanaynaa halkaas halka markaynu ku dhufano labada rectangle kadib okay baynu siinaynaa qoraalka inoo soo baxa kadib waa taa dhamaanteed isku dhagsan tahay cafwan wali waxay naga haray qoraalkaas ayaa naga haray qoraalkaasna hadii ilaahay raado halkaas baynu ku noqonaynaa labada boqos ayaynu tigaraynaa mid waa qaybtii isku dhagsanayd midna waxa weeye qoraalka ayaa naga haray kadibna dib baynu iskugu soo dhajinaynaa hadii ilaahay raado wadiga arkaya dhamaanteed way isku wada dhigsan tahay imika hal color baynu wada samayn karnaa hal color baynu saaraan wada samayn karnaa noocay doonaan ka dhigi karnaa laakiin defaultiga aan iskaga daayo sidoo kale background-ka waynu ka bedeli karnaa waynu aragnay sida background-ka loo bedelo sidoo kale waxa jira shaambadaha inta badan qaabka loo design gareeya logo-gu noocan u samaysan aad uma badna inkastoo ay jiraan qaar badani oo noocan u design gareysan laakiin inta ugu badan shaambadaha aynu qaabkan u isticmaalnaa waxa kaloo shaambadaha loo design gareeya saasoo kale waxoogaa loo yara dhuubaa inaad aragtay mooyaan inkastoo qaar rectangle ay jiraan shaambadaha laakiin qaar saa u yara dhuubana way jiraan xoogaa inta loo yara dhuubo qaabkaasoo kale laga dhigo si dhib yar baynu u sameynaa run ahaantii loogadii ay ku qornayd Islamic technology dhamaantiina fahantiin ayaan filayaa insha Allah taala
markaas background-ka tusaale ahaan anigu background-ka tusaale ahaan isticmaalay kalarkan ma aha kalaraanta halkan ku jira run ahaantii ma aha laakiin like this kalarkan baynu qaadanaynaa isaga laftiisana kadib waxaan ka dhigaynaa kadibna iyadana kalar kale ka dhigi doonaa si ay u soo muuqato tusaale ahaan iyadu waxoogaa waxaa la moodaa in uu ku yara jiro kalarkaas dahabiga oo kale camal waa loogada sidan oo kale bay loogadeeda run ahaantii u eg tahay waa iska qaabkan oo kale uun marka just waxaan ku tusayay uun qaabka loogooyinka kala duwan loo sameeyo kan waa casharkii ugu dambeeyay ku qaadanay qaabka loogooyinka loo sameeyo waxaan jeclahay in dhamaantii aad fahanteen tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kala lamid ah waa bahda Islamic Technology. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.